jacaylku waa qurux, waa nolol, waa wax kasta, laakiin goormuu yahay, yuuna u yahay. Ku soo dhawow muuqaalkani oo aan kaga hadlayo hal shay oo aan jeclaan lahaa inaan fahmo ka hor intaanan qof jeclaanin. Waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka la agareyso si dad badan u gaaro. Ka hor intaadan wax jeclaanin saaxiib, adiga is jeclow naftaada, jeclow sidaad u eg tahay. Naftaada daryeel oo ka buuxi jacayl. waxba nooma hagaagayaan haddii gudaha aan ka dareemayno marnaan iyo inaanan isjeclayn aan rabno in qof aan jeclaano kadib uu na siiyo jacayl daryeel iyo danayn kadibna wax kasta naga hormariyo marka ay dhici weydana waan qalbi jabnaa waxaan eedeynaa qofkaas laakiin qofkaasi eed ma lahan qofna ma jeclaanayo qof naftiisa nacay mana jiro si uu ku dareemo jacaylka maadaama uusan horay u dhadhaminin qof kasta waxa uu raadiyaa qof uu ka dareemayo inuu jacayl hayo jacaylka uu agtiisa yaalo laga arkayo qofkan dhaqamadiisa laga dareemayo markaasaa lagu jeclaanayaa markaasaa laga daba cararayaa jacaylku waxa ku raaxaysay kuwa naftooda ka bilaaway kuwaasuu janno u yahay u dhadhamayo wax kastana kaga qaalisan laakiin dhanka kale dad ayuu cadaab u yahay nolosha nacsiiyey ku rafaadsan fahmila isweydiinayo halkii ay wax ka qaldan yihiin maxaanan u helin qofka aan jeclaano nasiibkayga ayaa xun saaxiib ma nasiib xumid qof kasta wuxuu kaaga tegayaa waad abaaran tahay qalbigaaga wuu maran yahay naftaadu way baahi badan tahay waxa aad tahay qof haraadsan oo u baahan in la waraabiyo jacayl marka lagu waraabiyo ama lagu jeclaado baahi kale aad ka sii qaadaa intaa in ka badanayd u sii baahataa waxaad ku dheragto ma jiro waayo horaa loo dhahay sacbadaada biyo looga dhargaa gacantaada lagu gaajo baxaa labadan imaama waxa ay tilmaamaysaa waxa kaliya ku dareen bixi kartid inay tahay naftaada oo si dhabaad u jeclaatid adiga isii jacayl naftaada u naxariiso markaasaa qofka aad jeclaanayso wax badan uma baahanaysid laga yaabo in isaga uu kuu baahdo waayo aday agtaada yaalaan jacaylka agtaada ayay yaalaan daryeelka iyo danaynta markaasuu qofkani maseeri karaa uu isweydiin karaa sidan oo dhan qofkani muxuu naftiisa ugu jecel yahay jacaylkani miyuu aniga isiin doonaa qofkani waxaad ku qasbaysaa inuu ka fikiro sida uu u helaa jacayl la mida jacaylkaad naftaada siiso markaasuu qofkani agtaada ka dheeraanaynin ilaa uu helo saaxiib haddii aad rabto in weligaa lagaa tegin naftaada ka bilow wax kasta markaasay dhadhan kuu yeelanaysaa nolol raaxa leh ku noolaanaysaa nolosha lafteeda kuu dhadhamaysaa murugo niyajab iyo adiga waad kala fogtihiin markaas gacantaada ayaad ku maamulanaysaa dhammaan dareennadaad u baahan tahay adaa wax kasta isu ah ilaa qofkan aad ugu baahan tahay lajoog keliya iyo xoogaa inuu kuu soo celiyo jacaylka aad bixisay saaxiib weligaa jeclow naftaada si kastoo xaaladuhu kugu xun yihiin iyadaa kaa bixinaysa oo badbaadinaysa xaaladaha ma ahan joogto way isbeddelaan cagaha wax yar dhulka ku sii hay nabadiino